wasiirka duulista hawada ee Somaliland ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu kordhinayo garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ee ku yaala magaalada Hargeysa. wariyaha Somali Channel uga soo warramay magaalada Hargeysa Axmed Maxamed Jaamac ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. wasiirka duulista hawada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa maanta dhagax dhigay qayb cusub oo lagu kordhiyay madaarka magaalada Hargeysa. waxaana wasiirku sheegay in qaybtan lagu kordhiyay madaarka Cigaal International loogu talagalay inay dadku ka dhoofaan kana soo degaan. waxa aynu maanta dhagax dhigaynaa ballaadhin lagu sameynayo terminalka laga dhoofo ee madaarka caasimadda Cigaal International Airport. muddadii xukuumaddan kulmiye talada dalka haysay waa ballaadhintii afraad ee lagu sameeyo terminalkan. ujeeddada loo ballaadhinayana marba waxa weeye in la kordhiyo xaddiga dadka ka dhoofaya madaarka ee fadhiisanaya ku nasanaya ayay ka turjumaysaa. Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sidoo kale xusay in qaybtan cusub ee lagu kordhiyay madaarkan ay tahay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. waxay taasi ka marxaati kacaysaa in uu kordhayo traffic ama dhaqdhaqaaqa duulimaadyada ee garoonka caasimaddu oo sanadkiiba ay ka dhoofi jireen waqtiyadii hore 90000 maantana qorshaha qiyaastayada uu gaari doono dad aan ka yarayn nus milyuun uu gaari doono mustaqbalka. sidaa darteed ilaa iyo inta terminaalo casriya oo waaweyn meelahan ka duwan laga dhisayo iyadoo aanu master plan u samaynay garoonka oo aanay mustaqbalka dheer aan fici doonin kuwani waa in marba la kordhiyo oo qayb loo kordhiyo mar xagga loo kordhiyo iyo mar xagga loo kordhiyo. ballaadhintani waxay noqon doontaa in loo soo kordhiyo dhismahan qaybtan oo dhan la qaado wajahada loo soo kordhiyo saa loo soo dheereeyo oo laga dhigo hoos iyo dabaq iyo in gudaha laftiisa iminka la fadhiyana dabaq kale la saaro oo wajahada xagga ka soo jeedo oo dhan iyo dhinacaaba dabaq kale la saaro sida dhinaca kale ka. waxaanu filaynaa kordhisimadaas ilaa 100 qof inay qaadi doonto. marka terminalku wuxuu noqon doonaa terminal qaada dhowr 100 oo qof waayo iminka marka 3 diyaaradood waaweyn ku degaan oo min 150 qaadaya waa 450. runtii waxaanu u sahaaminaynaa in culaysyadaas oo dhan aanu ku jabino. madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa dhaqaale iyo dayactir ay ku bixisay dawladda Kuwait iyo sidoo kale dawladda Somaliland oo gacan ka geysatay sidii dayactir loogu sameyn lahaa madaarkan iyadoo sanadkii ugu dambeeyayba ay ka socdeen dib u habeyn ballaaran oo lagu waday madaarkan. Axmed Maxamed Jaamac, Somali Channel, Hargeysa.